waa idin salaama walaalaha aan halkan ku midoobnay. waa maalin cusub, saacad cusub, fiidiyow cusub iyo qayb cusub. ku soo dhowaada qaybtii labaad ee buugga qisooyinka nebiyada, waana qisadii nebi nuux. hakani waa hoyga akhriska buugta. haddii aad tahay dadka wax akhriska jecel, caqabadna ka haysato wax akhriska, haysdhibin ee halkan kala soco buug joogto ah. haddii aad si toos ah ula socoti buugga, waxay ka dhigan taha adiga oo akhriyey, waxaana uga xisaabtamaysaa buug aad dhammaysay adigu ogsoonow taas. janalkan wuxuu anfacayaa dadka aan waxba akhriyin. fadlan gaarsii dad badan. fadlan muuqaalka like saar, janalkana subscribe gareyso. mahadsanid. si aad ula socoti buugta taxanaha, waxayna ku bilaabanaysaa sidan. nebi nuux calayhi salaam waa nebiga ugu weyn marka laga soo tago nebi aadam. abtirsiimadiisa waxaa la sheegaa inuu galo shiit ina aadan. culimmada taariikhda waxay inta badan farta ku fiiqaan in nebi nuux uu ku noolaa ciraaq iyo shaam. fadligiisa, nebi nuux wuxuu ka mid ahaa nebiyada ulul casmiga oo ah 5 nebi ee ugu fadliga badan. nebiyada qur-aanka kariimka ah waxaa lagu sheegay 3 jeer iyo suurado badan, taas oo ina tusaysa inuu yahay qof fadli badan ku dhex leh basharka iyo in lagu daydo. waa rasuulkii ugu horreeyey ee loo diray ummad. alle wuxuu ku tilmaamay addoon shukri badan. waa nebigii ugu wakhtiga dheeraa ee ka shaqeeya dacwada alle. 9 sano ayuu diinta ugu wacayay. waa shiikha ambiyada. waa awowga labaad ee basharka. ummaddii nebi nuux. nebi aadam calayhi salaam waa aabbaha basharka. waxa uu ahaa nebigii ugu horreeyey ee arlada. waxa uu ku dadaalay in uu carruuriisa iyo duriyaddiisa baro tawxiidka iyo in cibaadada alle keliya ay u gaar tahay. waxa uuna ka reebay shirkiga iyo caabudidda cid aan alle ahayn. waxa uu uga digay khatarta shayddaanka. waxa uuna u caddeeyey in ibliis uu yahay cadowga alle. muddo ayaa ka soo wareegatay geeridii nebi aadam calayhi salaam. tirada basharka waa ay korortay. waxay caabudayeen alle oo keliya, ma aysan aqoon shirkiga. dhowr qarni kadib, dardaarankii nebi aadam ayaa la ilooway. haddana waxaa jiray dad wanaagsan oo mar kasta dadka xusuusiya wanaagga. bilowgii sanam caabudka. xilliyadaasi waxaa soo shaacbaxay in si weyn loo xuso dadkii wanaagsanaa ee geeriyooday, lana buunbuuniyo iyo xabaalahooda si loogu daydo camalkooda wanaagsan. balse jiilkii ka dambeeyey ayaa shayddaan uga dhigay in dadkaasi la caabudi jiray, islamarkaana wuxuu cagta u geliyey shirki iyo dembiyo waaweyn. waana markii ugu horraysay ee dhulka dushiisa lagu caabudo sanam. nebi nuux oo la soo diray. nebi nuux calayhi salaam wuxuu ahaa qof rumaysan allah. waxa uu u tegay qoomkiisa isaga oo ugu yeeraya rumaynta allah keligii oo aan wax lala wadaajin. wuxuuna dhihi jiray, qowmkaygiyow, anigu waxaan idin ahay mid idin diga oo weliba digniin cad ah. waxaan idin leeyahay alle caabuda oo ka baqa amarkiisana qaata. balse hadalkii nebi nuux dhegaha ayay ka furaysteen oo way iska indha tireen. waxayna dhihi jireen, adigu wax aadna dheer tahay ma jirto. dadka adiga ku raacayna waa kuwa u liita bulshada dhexdeeda. mar kasta uu xagga rabbi ugu yeero nebi nuux, dhegaha ayay faraha gashan jireen. haddana nebi nuux wuxuu juhdi iyo dadaal ku bixiyey inuu u naseexeeyo qoomkiisa. nebi nuux wuxuu xusuusin jiray fadliga iyo nimcada oo alle ku manaystay qoomkiisa. haddii qof iyaga ka mid ah uu dareemo in geeridiisa ay soo dhowdahay, wuxuu u dardaarmi jiray carruurtiisa. wuxuuna dhihi jiray, iska ilaaliya ninkaas, yaanu diintiina idinka saarine. nebi nuux wuxuu sii waday dacwadiisa. haddana qoomkiisa waxay gacanta kula jireen fisqi iyo macaasi. wuxuuna dacwadii waday 9 sano oo uu diinta ugu yeerayay, qiyaamahana xusuusin jiray. waxaa la sheegaa inay rumeeyeen dad tiro ahaan aad u yar. 80 qof ayaa lagu sheegaa dadkii rumeeyey. waxaase la yaab leh in xaaskiisii oo ay dadka ugu dhoweyd aysan rumayn oo kufriday. nebi nuux ayaa allaah baryay oo yidhi, rabbiyow, aniga waa la iga adkaaday ee ii gargaar. allah subxaanah wa tacaala ayaa u waxyooday nebi nuux in aysan rumayn doonin intii horay u rumaysay mooyee sidoo kale uusan isku murjin waxay samaynayaan. nebi nuux ayaa alle ka baryay inaan arlada korkeeda looga tegin wax gaal ah, waxaana la faray inuu sameeyo doon ay fuulaan isaga iyo intii rumaysay.
nebi nuux calayhi salaam wuxuu gudagalay samaynta doonidii la faray alle subxaanah wa tacaala ayaa u waxyooday sida loo sameeyo doonta qoomkiisa markii ay arkeen nebi nuux oo dooni samaynaya waxay bilaabeen inay ku jeesjeesaan. waxayna dhihi jireen nuuxow manajaar baad noqotay oo nebinimadii ma iska daysa. waxayna dhihi jireen nuuxow manajaar baad noqotay oo nebinimadii ma iska daysay. wuxuu nebi nuux ku warcelinayay, haddaad iminka nagu jeesjeestaan innaga ayaa idinku jeesjeesi doonaa idamka Alle. wuxuu dhisay doon aad u weyn oo ka kooban 3 dabaq oo dabaqa hoose la dejiyey wuxuushta iyo dugaagga, qaybta dhexena waxaa la dejiyey daabooyinka iyo shimbiraha. dabaqa sarena waxaa degay nebi nuux iyo intii rumaysay, waxaana la faray in xayawaanaadka nooc weliba lab iyo dhadig laga saaro doonta. doonida socodkeeda iyo joogsigeeduba wuxuu ku xiran yahay bisinka. allah subxaanah wa tacaala ayaa u waxyooday nebi nuux in calaamadda uu ku garanayo xilliga uu cadaabka imaanayo ay tahay in tanuurka muufada uu biyo ka soo baxo. sidii ayaana dhacday. dhulka ayaa ilo biyo ah ka dilaacay, cirkuna wuxuu keenay biyo aan kala go' lahayn. biyihii dhul iyo cir ayaa isqabsaday, mawjado waaweyn oo buuraha oo kale ah ayay dul sabaynaysay doonida. halka uu ku dambeeyey wiilkii caasiga ahaa. markii Rabbi faray nebi nuux in doonida uu saaro xayawaanaadka, shimbiraha, dugaagta iyo dadkii rumeeyey, nebi nuux wuxuu xiray iridda doonida, waxaana arladii isku shareeray mawjado biyo ah. nebi nuux wuxuu ugu yeeray wiilkiisa inuu soo raaco doonta, balse wiilkii ayaa ka dhaga adeygay, wuxuuna yidhi, waxaan tegi doonaa doon iga ilaalinaysa biyaha. nebi nuux ayaa ku jawaabay, maanta ma jiro wax kaa ilaalin kara halaaga Ilaahay, Alle cidda u naxariisto mooyee. iyagoo sidaa u wada hadlayaa waxaa dhex galay hirkii butaacayay, wiilkaasina halkaas buu ku qarqoomay. nebi nuux wuxuu u dhawaaqay Rabbi, wuxuuna yidhi, Rabbiyow, wiilkayga wuxuu ka mid ahaa ehelkayga, ballantaaduna waa dhab, kuwa wax xukuma adaa u xukun wanaagsan. allah ayaa u jawaabay nebi nuux, wuxuuna Alle yidhi, nuuxow, wiilkani ehelkaaga kama mid aha, isagu wuxuu la yimid camal aan wanaagsanayn, wax aanad aqoon u lahayn ha i weydiin. anigu waxaan kaa waaninayaa inaad juhalada ka mid noqoto. nebi nuux ayaa Alle weydiistay dembi dhaaf iyo naxariis. dadkii Alle ku caasiyey halkaas ayaa lagu halaagay. dhulka ayaa sidiisii hore ku soo laabtay. Alle wuxuu yidhi, dhulkow, biyahaaga iska liq, cirkiyow, adiguna jooji biyaha. halaagiina waa la dhameeyey. doonidiina waxay isku qotomisay oo joogsatay buur uu Alle u diyaariyey. buurtaas waxaa la sheegaa inay ku taallo waqooyiga Ciraaq. mar kale ayay noloshii ku soo noqotay dhulka. dadka dhulka joogayna waxay ahaayeen mu'miniintii rumeeyey nebi nuux calayhi salaam. eebbe weyne isaga oo nooga warramaya qisada nebi nuux waxa uu yidhi, annagaa nebi nuux u diray qoomkiisa si uu ugu digo cadibaad horteed. wuxuu ku yidhi, qoomkaygu waxaan idin ahay diga cad oo muuqda ee eebbe caabuda kana dhowrsada oo i adeeca. wuu idin dembi dhaafi, wuuna idin dib dhigi ilaa muddo magacaaban. marka eebbe la yimaado ajasha, wax dib u dhigid ahi ma jirto. haddaad wax ogtihiin, nebi nuux waxa uu yidhi, Rabbiyow, waan u yeeray qoomkayga habeen iyo dharaar, u yeeritaankaygana uma siyaadin wax aan carar ahayn. mar kasta oo aan ugu yeerana si aad ugu dembi dhaafto, waxay farahooda yeelaan dhegahooda, maryahoodana way isku dadaan, wayna ku madax adaygaan xumaanta, wayna isweynayaan. si kor ah ayaan ugu yeeray dadka dhexdiisa, waana u qayliyey cod sare hoosna waan ugu yeeray. waxaan ku idhi, Rabbigiin dembi dhaaf weydiista, waa dembi dhaaf badane. maxaynu ka baran karnaa qisadani? shaydaan waa cadowga ugu weyn basharka. shaydaan ayaa sabab u ahaa caabudidda sanamyada. shaydaan oo la raaco waxaa laga dhaxlaa cadaab adduun iyo mid aakhiro.